وأرور وجدوا dadka Muqdisho subaxyo badan oo soo maray. dadka ku nool caasimadda ayaa saakay u dareeray doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dooranayaan golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa xiran wadooyinka, goobaha ganacsiga, waxbarashada, ilaha dhaqaalaha sida garoonka iyo dekedda. sabab la xiriirta doorashada dadweyne oo kaliya loo ogol yahay in ay socdaan gaadiidka fasaxa u haysta in ay adeegaan. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey. madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa dadka ugu baaqay inay codkooda dhiibtaan maadaama 58 sano kadib ay u tahay fursad ay heleen. aabbaha Soomaaliyeed, hooyada Soomaaliyeed, beeraleyda, ari raacatada, xoolo dhaqatada waxaa goolkeenu yahay inaanu meel walba ay joogaan aan ugu geyno sanduuqa codbixinta. yaa 57 sano ka hor codeeyay oo meeshaan taagan yaa marka ogow maanta codaynta ssoo socotahay micnaha iyo fursadda ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay waa kaasa ballanteenu waa inaan u dareerno doorasho 25 isla markaana aan ku cilbaxno codkeen.